waxaan marana baligi shigeed ka sheegay gobol magan wow ya ila gobol magan baan ceelina shiro kurid ya wax la cayriyo been baa ugu orod gaabiso ila shalay mashquul baan ahaa safarana waan ku jiray laakiin si haddaan soo laabtay ila ay dhowr talo baan rabaa inaan halkan ka diro shalay wixii ka dhacay sanaag gaar ahaan duleedka Ceerigaa baan rabaa inaan falanqayn guud ka bixiyo qasaaraha labada dhinacba kala gaaray shangeed warka laga soo sheegayo iyadana waxaan rabaa inaan faahfaahiyo midnimada dhulbahante midnimada harti ee waxa iska bedelay xaaladii dagaal ee nimankaas isaaq nagala dhaxaysay ayaan rabaa inaan iyadoon ku nuuxnuuxsado dhammaantiin soo dhawaada muuqaalka dhammaantiin share gareeya dhammaantiin la gareeya YouTube kana ku soo biir aad maasati aan ku horeeyo shangeed maanta baraha bulshada waxaa qabsatay shangeed baan gubnay halkaanay ka dhacday waa waray waa tan shangeedi ma laba shangeed baa jirto mise mid aynaan aqoon oo qoriligu dusheeda ku taalo oo ma taqaanaaye hadba dab la qabadsiiyaa jirto waa tan shangeed dabna lama qabadsiin waana kuwan ciidamada SSC ay joogaan ila arka saaka waxaan joognaa shangeed waa 18 bisha 12aad 2024 ma jiraan wax dhibaato magaalada loo geystay fiidiyoo la wareejinayo leeyahay magaalada la gubay iyo magaalada sidana ma jiraan waad u jeedaan magaaladii wataa shangeedeedii waa kuwa dhinaca waa kuwa meel walba wataas dhinaca waka waad aragtaan aadiya aad maqlaysaan ilaa iyo qorlugud baan dul taaganahay iyo goblo magan waa ballayadii lagu dagaalamay arinta shangeedan markii idin sheegay ciidankii isaaq ee eriyadan joogay cayn qorlugud joogay oo dhan waxay joogaan sanaag kulli waana maqlayna arkayna anaguna waa ognaay waana mid keentay in xilligan qorlugud la dul joogo oo saacad kasta lagu gubi karo ciidamada SSC ay joogaan warada rayaalo hadiinaan qaybsamin anagu waan qaybsanaay ogaada sheekadana waan fahansanahay buqdarkeen bi wax ku turtureen waa maqanahay way macnahay ogaada caynaba iyo buqdar macna ma taqaanay og waa gacane anagu waan fahansanahay anagu xeelad dagaal baa dhuqo culbaan ognahay waxa ma jiraan meeshaas arintaas waa taas oo arinta shangeed de waa u jeedaa cadaynteed shalay sanaag qasaare waa jira labada dhinacba gaadiid waa la kala qabsaday beentu ma fiicna inaguna laba gaari baanu ka qabsanay iyaguna gaari bay qabsadeen dhankooda wax maxaabiis inaga ma qaban iyaga ilaa 4-5 nin baa la hayaa oo la soo bandhigay mid saddex meel baa lagu soo bandhigay laba meel baa lagu soo bandhigay shalay dagaalkii kaadi weyn uu ahaa hal reer baana shalay dagaalamay nimanka dhulbahantay ahaayeen iyo dir waqooyi oo dhan baa dagaalamay saldhigyadiina waan joognaa saldhigii dhuur madare oo dhabar jabinta ay dabceen kaga sameeyaan ciidankii masagan joogay gacan weeye waa la qabtay masaganna waa la hayaa markii halkaasi joogto waxaan rabaa inaan halkan ka diro in dagaalkii waji kala yeeshay isaaq iyo harti u dhaxeeyay farqiga u dhaxeeyay isaaq iyo harti baan rabaa inaan idin la wadaago nimanka isaaq si kasta siyaasada ay isugu hayaan si kasta ay isku laanjeereeyaan ha kala xumaadaan laakiinse waa isku hal mabda iyo isku hal aragti isaaq harti ka weyn abtirsi ahaan mabdaoodana waxay ku qasbeen oo sandulle uga dhigeen reerihii waqooyi deganaa oo ay ugu horeeyaan Samaroon iyo Ciise dadka ay rabeen inay ku sandulleeyaan hartiga ma taqaanaayay jiidahaasi eradaas ay dariska ka yihiin waxa la isku hayana war aragtidaada ma rabno waan diidanahay way iyo maya waad qaadanaysaan oo Samaroon iyo Ciise waa ila qaateen adna qasab igula qaado waana mid keentay loo qoosgooyo damacyadoodii reerka isaaq siyaasad kastoo soo kala dhex gasha iyagu hal maamul hal system hal aragti way dhanka hartigu kaas ma aha dhanka hartigu waa kala maamul waxa isku jawaabay Khaatumo iyo Puntland Khaatumo la faragelin baa lagu hayaa Puntland oo ma taqaanay sool iyo cayn sheeganayso iyana halkan warsan galigu soo boodiyo maakhir baa leh
baan leh waa dad aan midaysanayn siyaasad kuma midaysna hadaf kuma midaysna aragti ma ku midaysna tafaraaruqooduna waad ogaan doontaan ceeb fara badan buu dhexli doonaa keeni doonaa waxaan leeyahay harti aan halkan fariinta uga diray waxay tahay adeerayaal hadda ragga aynu la dagaalamayno hadda maalintii ay kala qaybsanaayeen waa ka guulaysan siyaasad ahaan u kala qaybsanaayeen waanu ka guulaysan laakiin si runta liqoo nimankaas maanta waa mid hartiyo maxaa adiga kuu xal ah hal aragti ma leedahay aad ka duulaan tagaysid hal system iyo hal maamul ma leedahay maya malihi waxyaalaha aan u diidan anigu in la kala maamulo harti oo xuduuda la kala samaysto oo maamul loo samaysto waa waxaan aan arkay ogaadana midnimadu wax badan ayay goysaa halka tafaraaruqana wax badan uu dib kaaga dhigay wax badan aad hagranaysid wax badan oo dibindaabiye ah ay kugu dhacayaan marka waxaan leeyahay war midnimada ha laga shaqeeyo weliba isimow dadkan idinkaa wax isugu daraye maamulana u sameeyey waa dadkan runta loo sheego tafaraaruqu dhibta uu leeyahay soo aragnay warnimayo hal maamul aynu noqono hal maamul hartiyo dhan ha noqdo macnaha markaan leeyahay hal maamul ma ahan inaan Puntland noqonayno macnaheeduna ma ahan inaan Khaatumo noqonayno macnaheeduna ma ahan inaan Maakhir noqonayno war waa hal aragti oo hal maamul ka soo go'do taladeenu aynu noqono hadii kale ilmaadeerayaal waxba yeynaan iswariinin nimankaas hal aragti bay leeyihiin hal maamul bay ku midaysan yihiin goor iyo goosadkooda hal maamul ay ku wada socdaane taladuna way inaga baahaysaa hadaynaan hal aragti ka lahayne ilmaadeerayaalow nin walba dirintiisa ha qaato nin walba dirintiisa ha qaato oo nin walba deegaankiisa ha difaaco aadiya wax badan baan arkayaa wax badan oo dhaliilaa baa jira qayb waan dadka waan la wadaagayay waa aragtiyaha baahsan oo waa xaq baan u leeyahay inaan miidiyaha keena qaybna ma keenay dhaliilaha miidiyaha oo waxbaan la kala harayaa isimow siyaasiyiinow mideeya aragtidiina nimankaas aan isayno aragtiyaha isku hayno waa mid Samaroon iyo Ciisana waa kula socdaan waxa mataqaanay kala baahsanna waa inaga waxa isdiidan ee hadba dhan u boodayna waa inaga waa inaynu runta liqro Samaroon iyo Ciise ku jiraan dagaalka aragtidooda ay ku sanduleeyeen cida diidana waa inaga inagoo kala maamul marka ma la dagaalami karnaa maya waad ogeedeen la sacaanood ciidankii harti ee ka soo baxay Puntland magaca Khaatumo ku howlgalay calanka Khaatumo ku dhagsana hal aragti baan ku duulayni ciidankii warsan galay iyo dad shiishay kulli harti calankiisa si Khaatumo ugu dhagnaa jiidahan hadda ceerigaabo ama eriyadaasna waa in hal aragti lagu difaaco wixii ka soo haraya soo ma ahan waa bayd xaydha jecel beerka jecel waxba yeynaan iswareerin dhalinyarada media waliba dhalinyarada ma taqaanay hadda la khalday ma taqaanay sida xun ugu dhex haftay media oo Cabbaas Madani iyo Yacquub Siyaad iyo Garaadsan iyo waxaan leeyahay halkaas arintu ma jirto aad ka raadinaysaan ka daaya dadka tolka ka daaya shoolad baa idin soo dhigay waad qaadateen tafaraaruqna wax badan oo dhibaato ah inoo geysanaya ogaada inagu kala maamulo iyo kala xad ma nihin haddaynu kala maamulo iyo kala xad noqono waxaynu la dagaalamayna isayna waa isaaq oo xadkoodu yahay yoocada marka ma jeerteen inuu baanta xadkoodu ma yoocada noqonaya markii war caqligu ha shaqeeyo intaas aan ku soo kufanaya billahi tawfiiq